Today we will talk about people, places, everyday items, and actions. Maanta waxaan ka hadli doonaa erayo ka hadlayo dadka, goobaha, waxyaalaha maalinlaha ah, iyo ficilada. Father, my father is very kind. Aabe. Aabahay waa nin naxariis badan. Mother. Her mother cooks delicious food. Hooyo. Hooyadeed waxay karisaa cunto macaan. Teacher, the teacher gave us homework. Macallin. Macallinku wuxuuna siiyey shaqo guri. Child, the child is playing outside. Ilmo. Ilmuhu wuxuu ku ciyaarayaa dibadda. Friend, he is my best friend. Saaxiib. Waa saaxiibkayga ugu fiican. School, I go to school every day. School. Waxaan aadaa iskuulka maalin kasta. Market, we bought vegetables from the market. Suuq. Waxaan ka soo iibsanay khudaar suuqa. Mosque, the mosque is near my house. Masaajid. Masaajidku wuxuu ku dhow yahay gurigayga. Home, they returned home after school. Guri. Waxay gurigooda ku noqdeen iskuulka kadib. Book, she is reading a book. Buug. Waxay akhrinaysaa buug. Pen, I need a pen to write. Qalin. Waxaan u baahanahay qalin si aan u qoro. Phone, his phone is new. Telefoon. Telefoonkiisu waa cusub yahay. Chair, please sit on the chair. Kursi. Fadlan fadhiiso kursiga. Car, we traveled by car. Baabuur. Waxaan ku safarnay baabuur. Eat, I eat breakfast at 7 a.m. Cun. Waxaan cunaa quraacda 7 subaxnimo. Run, he can run fast. Orod. Asaga si degdeg ah uu ordi karaa. Sleep, the baby is sleeping now. Seexo. Ilmuhu hadda wuu seexday. Write, write your name here. Qor. Ku qor magacaaga halkan. Speak, can you speak Somali? Hadal. Ma ku hadli kartaa af Soomaali?